oo kamid ah madax dhaqameedka Somaliland ayaa sheegay in kulan dhex maray musharaxa xisbiga kulmiye iyo qaar kamid ah odayaasha ka soo jeeda deegaanka Sayla uu ahaa mid aflagaado loogu geystay dadka deegaankaasi shirjiraayad oo ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu kaga hadlay waxyaabaha ay ka cabanayaan أنا magacaygu yahay Ugaas Ismaaciil Cabdi Hulul halkan waxaan uga jawaabay ninka la yiraahdo musharaxa Musabix Cabdi waxaan uga jawaabay beesha ayid ee qaranka ee ku sheegay saddex madaxtooyada ayaan ka jawaabaya maanta sida daraaddeed ninkaas waxba wala muuxay magacayagiina uu baabas halka waxaan uga sheegaya mar labaad beesha Sigaaro iyo sultaankooda Sultaan Xasan سلطان عبد الرحمن عبد الله ديريه صدح سلطان صوت السنة نكاس المسؤول واحد لا هلقا واحد مخاطب بهنا إن الحال يحمي نكاس دبي يقول لك قلي أبنوك من دام بحير نوقات وحن لا موسى ما أنت مركز رب الأبن ومقاطعنا بيش يجب مجا عهد شيختي أيك وقاطع كما تبينا ضل هو تقول يوم بهنا ويروح بهنا قال إن الله حكمه قرب كان يمكن تونان وفرتين يتاجرين ماشي قالن كتير تومن طورنا نكاون مشكلة علينا نادب يسوون ميل قاربة ودير بنقول مقعابي صدق نك صدق نقول مقعاب نلو سود ويسمع نلو عارك كرنا ما صدق ده نوال سؤال دونايو وحلورن ده بالمحاك يقول كلفة قرن كده صدق ده كشيء صدق أنا نقول مقعابنا ومنا نومنا نقولنا وحن كلنا نيوقف قاب نقف ونقول أنا قلنا ما أنت مركز قبل أبونا قاطع نون قاطع خالد عثمان إبراهيم هون كيبل تي في مقالة هرقيسة.